golaha guurtida Somaliland ayaa maanta warbixin ka dhageystay guddida dhaqaalaha ee golaha oo muddo ka shaqeynayay xeerka shirkadaha caymiska qaranka oo golahaasi hor yaala. Gudoomiyaha guddida dhaqaalaha golaha guurtida Xildhibaan Axmed Dirir Cali ayaa mudanayaasha u soo jeediyay in ay ansixiyaan xeerka caymiska shirkadaha qaranka oo uu sheegay in ay ka soo baraandegeen kalana tashadeen cid kasta oo uu xeerkani khuseeyo sida shirkadaha caymiska iyo komishanka caymiska qaranka. Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta oo uu sheegay in ay wax ka weydiiyeen xeerkani in uu waafaqsan yahay diinta islaamka iyo in kale. Waxaanu xusay in ay wasaaraddu u sheegtay in uu xeerkani waafaqsan yahay diinta islaamka. Waxaanu golaha u soo jeediyay in ay sidaasi ku ansixiyaan xeerka shirkadaha caymiska isla markaana la tijaabiyo. Intaas kadib gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland Mudane Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa ku dhawaaqay in guddi kale oo aan ahayn guddida dhaqaalaha loo saaray xeerka shirkadaha caymiska lana siinayo waqti dhan muddo 7 cisho ah si ay u soo faaqidaan. Sidoo kale gudoomiyaha golaha guurtida ayaa guddi xoojina u magacaabay 3 xildhibaan oo kamida golaha in ay xoojiyaan guddidii golaha guurtidu u saaray xalinta shaqaaqadii ka dhacday deegaanka Cali Saahid ee hawdka gobolka Togdheer. Gabagabadii gudoomiye Saleebaan ayaa mudanayaasha ku wargeliyay in ay u soo diyaar garoobaan su'aalo weydiinta wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland Xasan Maxamed Cali Gaafadhi oo maalinta bariya hadii Ilaahay yiraahdo hor iman doona golaha guurtida Somaliland halkaasna ay ku weydiin doonaan su'aalo la xiriira arrimaha caafimaadka dalka. Mudanayaasha ayaa hore u dalbaday in wasiirka loo yeero si wax looga weydiiyo xaaladda guud ee caafimaadka dalka oo ay ka deeriyeen mudanayaashu. muddadaasi aanu haysanay xeerka akhri dabadii waxaan waraysanay komishanka qaranka ee caymiska ama se guddida komishanka guddida caymiska yaanu waraysanay markaan warkii ka qaadanay haddana waxaan u yeedhanay guddida shirkadaha caymiska intaas markaan dhaaftay waxaanu u jeclaysanay inaanu ogaano bal waxaana loo dhiibay inuu shareecada waafaqsan yahay iyo in kaleeto culimadii ugu afka dheerayd ama ugu aqoonta badnayd yaa noo yimi oo ay ku jirto socoto wasaaradda awqaafta waxay noo xaqiijiyaan inuu xeerkani waafaqsan yahay shareecada mar hadduu yahay mid lagu sharaaka lagu yahay ama waraar lagu yahay wixii dhibaato ee dhaca nafta ku dhaceen ama sahatida ku dhaceen ee aanu ahayn kan caymiskan caalamiga ah ee waxaad bixiso ama waxa ku gaareen ama ay ku gaareen ee la iska qaadanayo taase baaqi baa ku soo noqonaya sanadku markuu dhammaado wixii ilaahay ka soo baxa ama uu jideeyo uu dhammaystirayo muran ma laha bini aadanse waxay qabtaan qabyo lagama waayo taasay tahay xeerka markaanu eegnay waxaa noogala muuqatay inuu badbadan yahay haddii xeerkuna wuxuu u baahan yahay wuu ugu cusub yahay in tijaabo la geliyo ee lagu shaqeeyo haddii markaas dhaliilo ka soo baxaan dee ila qur-aan maahee waa la soo celin doonaayo wax ka bedeli iyo kaabis baa lagu samayn doonaa waxaan soo jeedin lahaas martuu xeerku muhiimaddaas leeyahay oo weliba ay jirto shirkadihii maalgashigu su'aalahay weydiiyaan dowladdeena marka ugu horeysa yimaadaan waa 2 ma leedihiin xeer maalgashi si ay ogaadaan lacagtooda ay la bixi karaan iyo ma leedihiin caymis oo waxa iyagu badbaadaya tii maalgashigu way leenahay laakiin tii caymisku waa tan hor taalla caymiska marka laga hadlayo kuma koobna gaadiidka waxaa ku jira caafimaadka oo waxaa laga yaabaa $20 bishii bixisaa adiga iyo faamiligaagaba in lagu daweeyo haddii loo baahdana in dibadda lagu qaado dad badan oo inaga mid ah waxay u jiifaan way bixi kari waayeen dibadda heli kari waayeen halkaan waa lagu daweyn kari waaye hadday caymis ku jiri lahaayeen dee taas way dhacdeen aan wax soo jeedin lahayn xeerka oo muhiimaddaas leh awgeed in sidaa uu yahay lagu sii daayo yaan soo jeedinaynaa waxaan ku codsanaynaa xildhibaanada inay gacanta u taagaan naguna ixtiraamaan juhudkii badnaa ee aanu gelinay weligay xeer tijaabo la gelinayo waa markii ugu horreysay axmedow xeer tijaabo la gelinayo waa markii ugu horreysay wuxuunaan u qaadanaynaa
ملاوات كوكري سترك بعد ويدي أبى تناول سنافس كتابة كلمين قد داسو هذا رويكات وحيرتي ينان دود هذا قلني هرتا إن قدي كتبه صار قدي تبه قراءة ككوبا أينو صار هل تضوارنا أنسينو هل ما يكون في لبيلتين هل باكون في لنا هذا يكون في لنا ويدو كردين وياهي كنت دي بندسون مقعابنا هل كابريتين ودقنا كنت دا إذا دي شاقو وفتقي أينو درهي تقدر برعو منو درهي تقدر أينو درهي وكلا بيغبيغي حوتين بوباهنا حوتين أحمد قعن واحد ورصدا محمد عبد الرحمن يسوي حدش يدور السعودية يسوي كان درا marka halkuu joogaa guddoomiyahoodiibuu sinadan u yeeshay uu sabixi isagu guddidaa waxaynu ku daraynaa 3 nin awalba u baahnaayeen waayahay waxaynu ku daray axmed jirdaynu ku daray kow أحمد شردكو علي حسين مقدر طاهر علي جامع سدح دوما متشوغل سدح لاسين وكحوتين بالي يعرف يلا مركو ربا كم مقرام حين وقدم سدح لاسين مقدر إنا كدو عاية بريتشو ديال ليغاو وزير كوا ديني من يا عطستين وزير كوا عطستين ما ديني من هلو سو ديار كانوا